function kan kale ayaan haysanaa oon la ka rabo inaan raadino derivative-kiisa anoo isticmaalina implicit differentiation. marka waad aragtaa x iyo y du way isla socdaan, marka implicit differentiation unbaan derivative-keeda ku raadin karnaa. marka waxaan sameynaynaa qaybtan derivative-keeda ayaan raadinaynaa, qaybtana derivative-keeda ayaan raadinaynaa. marka waxay noqonaysaa derivative-ka d all over dx oo xy waxay la mid tahay haddana qaybtan derivative-keeda ayaan raadinaynaa d all over dx oo cot xy. marka labada dhinacba derivative-keeda ayaan raadinaynaa. marka derivative-ka midkan waxaan isticmaalaynaa product rule-kii. marka koobaad derivative-ka x ayaan raadinaynaa oo waxay noqonaysaa y lagu dhuftay d all over dx-ga derivative-ka y lagu dhuftay derivative-ka x. marka y sideeda ayaan kusoo qaadanaynaa, kadibna waxaan ku daraynaa y. hadda derivative-ka y ayaan raadinaynaa, marka x sideeda ayaan kusoo qaadanaynaa x waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka d all over dx y-da. marka hadda qaybtan waan bognay waxay la mid tahay, marka tan derivative-keeda waxaan ku raadinaynaa d all over dx. marka koobaad waxaan raadinaynaa cot-ka trigonometric function-ka cot xy, kadibna waxaan raadinaynaa derivative-ka qaybtan d all over dx oo xy. okay, marka midatan qaybtan waxaa weeyaan y sideeda ayaan kusoo dejinaynaa, derivative-ka x waa iska 1, derivative-ka x waa iska 1. kadib inta waxaan ku haysanaa x sideeda ayaan kusoo qaadanaynaa, derivative-ka y waa iska dy all over dx, dy all over dx. marka sida tan ayaan ku keenay derivative-ka qaybtan. hadda derivative-ka cot xy cotangent derivative-ka cot waxaa weeyaan minus cosecant squared, haddana xy baa la socota, xy-da soo qaadaya. u fiirso the derivative-ka xy waa sidaan inta ku keenay, marka uma baahan hadda inaan si dib idiin tuso. marka isla sida tan weeyaan, marka sida tan aan kusoo qaadayna waa iska y times 1 plus x dy all over dx, because waxaa weeyaan the same process unbaad maraysaa. marka koobaad derivative-ka x ayaan raadinaynaa, y sideeda ayaan u daynaynaa, kadibna waxaan ku daraynaa x sideeda ayaan u daynaynaa, derivative-ka y ayaan raadinaynaa. sidan hadda meeshaan kusoo samaynay. marka haddii aan sii simplify garayno waxaa noo soo baxaya y haddaan halku dhufano waa iska y plus x dy ayaan inta ku haynaa x dy all over dx. waxay la mid tahay inta u fiirso, inta plus ma sorry, inta waa times because multiply weeyaan. marka inta waa multiply, marka sidaas ayaan sameynaynaa. marka waxaan sameynaynaa bracket-kan ayaan jabinaynaa, marka minus cosecant squared xy ayaan ku dhufanaynaa bracket-kan waxa ku jira. marka waxaa noo soo baxay markii koobaad y times 1 waa iska y, marka minus y1 waa iska minus cosecant squared xy. marka y-da waa iska dhankan ayaan soo marinaynaa, marka minus y ay noqonaysaa, because meeshan y haddaan ku dhufano 1 waa iska y. marka inta waxaan ku haysanaa iska y plus x, marka minus cosecant squared xy haddaad y ku dhufatid waxaa kusoo baxaya minus y cosecant squared xy, kadib minus cosecant squared xy ayaan ku dhufanaynaa kan, wuxuuna siinayaa minus kan plus kan ay ku dhacaysaa, marka minus ay noqonaysaa meeshan minus
x tan x dy all over dx cosecant squared midtan waa dheer tahay marka waan yar yareynayna marka minus x dy all over dx cosecant squared xy marka inta aan hayno waxaan samaynaynaa wixii x dy all over dx ayaan dhankan kusoo reebaya marka waxay noqonaysaa dy all over dx inaan inta kusoo reebo marka wixii dy all over dx wata dhankan aan soo keenayaa y-dan dhankaasaan geenaya waxaan wada marka midda tanna waan soo rarayaa minuskan minus dy minus x dy all over dx tan intaan keenaya marka plus ay noqonaysaa plus x dy all over dx cosecant squared xy marka y-da tan dhankan aan geenaya marka minus y ay noqonaysaa iyo minus y-da tan minus y cosecant squared xy marka inta dy all over dx ayaan factor out garaynayaa dy all over dx ayaan factor out garaynaya marka waxay noqonaysaa dy all over dx gudaha waxaa igu soo haraya x plus x cosecant xy soo maaha dy all over dx basaan banaanka soo saaray marka x-tan iyo x-ta qaybtan ay isugu kay haraya dhankan marka intana waxaan ku hayaa baadkan waa iska minus y minus y cosecant squared xy marka waxaan samaynayaa sifa ay dy all over dx dhankan igu soo harto labada dhinacba waxaan u qaybinayaa waxan x plus x cosecant labada dhinac waxaan u qaybinayaa midkan marka x plus x cosecant squared xy weeyaan dhankanna waxaan u qaybinayaa sidaas oo kale x plus x cosecant squared xy marka the final step hadda noo dhiman waxaa weeyaan in aan factorize garayno marka waxay noqonaysaa sida tan haddii aan delete garay baadkan marka sida tan ayaan ku haysanaa dy all over dx inay la mid ah marka tan iyo tan waa isla baxayaan marka waxay igu soo haraya dy all over dx waxay la mid tahay is equals to inta u fiirso waxaan rabaa inaan factorize gareeyo wixii common ah inaan factor out gareeyo ayaan rabaa marka inta waxaan ku haysanaa y waa common marka minus y ayaan banaanka u saaraya korkan marka waxaa igu soo haraya meesha waa 1 plus cosecant squared xy
minus y ayaa common minus y annakan ku imasta minus y marka saas ay u soo haraysa hoosna maxaa common x ayaa common marka x ayaan banaanka u saarayaa x all over marka waxay soo haray 1 plus cosecant squared xy ha marka saad aragtiin korka iyo hooskan sorry ma aragtiin marka waxaan sameeyay qaybtan minus y ayaa common ah denominator numerator taagan marka minus y ayaan factor out gareeyay waxay u soo haray 1 plus cosecant squared xy hoostanna waxaa common x marka x tana banaanka ayaan soo saaray waxay soo haray 1 plus cosecant squared xy marka labadan waa isku mid ayagana waxaan sameyn karaa waan isla cancel karaa marka waxay soo baxaya dy all over dx inay la mid tahay minus y all over x marka derivative-ka function-kaygu wuxuu noqday minus y all over